haddii ninku uu ku furo xaaskiisa 3 dalqadood waliba mid ay sii horeysay maxaa xal ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد عبد الرزاق طبعا reerku waxay isku qabaan waa 3 dalqadood dalqada sii horeysay haday dhacday ay ku xidhan tahay labadan dalqadood ee dambe inay isku mar ahaayeen iyaga laftoodu 2 jeer inay kala ahaayeen haday 2 jeer kala ahaayeen oo rajciye isku noqod u dhaxeeyay xalku waxa weeye in Ilaahay risiqiya calaf kala ha kala siiye mid walba guur xalaal oo kala u raadsado qadada dambe 2 hal mar la israaciyay ahaayeen oo labaad ku furan tahay la yiri ama waad furan tahay oo eray lagu celceliyay waxa طبعا ومسألة خلاف بدن كجيرو مرة بدنا سؤال شيء نقول صار نقطة النبي صلى الله عليه وسلم دلاق النوع سوق لو دواقه هل دلقت بلغ سوق قاضي شري ابن عباس وكان النبي كوريان إن حلق النبي صلى الله عليه وسلم هي وقت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هي قيبتي هوري والرواية قاركود 2 سنة كما عاويان عمر رضي الله عنه وأرضاه انت أصلا هل دلقت بلغ سوق قاضي الشري كدي عمر باسوتشي دي دادكم مركي دلاقي فضودايستان أرين لغا فيرسان شرين لغا فضوداداي يو صحابة قوة فردي اي جوغين قيبا كاميدا وسوتشي يولي قفكي 3 دحدان 3 ديك سكو قادنو سيدن لطه جمهورتي ama badan saxaabada arinka waa yeeleen waxa loo arkay dan iyo maslax laakiin daliilkii naska hadii la yiraahdo tan nabiga laga dhaxlay buu sallallahu alayhi wasallam ijmaac hadii la yiraahdo xilligii umarna kii Abu Bakar iyo Umar qaybtiisa hore ijmaac kale oo hal in laga soo qaaday ahayd sababta aniga waxa raajix ila saxiix ila 2 isma raacaan 3 isma raacaan hal cidda ma wada yeeshaan الطلاق مرتان ويكرجع إلى سوء عشان كره مدن لبعضنا هل دلقب بين نقونيسا هدي أن رجعي يسكن نقود دحينين وما الله ودي هدي وان كوفر وقراء ما فاي هاي أما لقوا على العليي هل دلقب بيسكن نقونيان وبالله التوفيق